السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأد السلام يا دمان أصحابته. بعد السلام waxaan rajeynayaa insha Allah in aan caawa ku daro xampp oo aan horey u soo install gareynay. caawana aan rabno inaan soo bandhigno web pages yar oo aan ku sameynayno PHP-da isla markaana MySQL-ka aan ku sameynayno table. طبعا إن شاء الله مركا القصين كبلابنا إن شاء الله يدين سوق عنينا أن start قرينا already هذا هو start قري سنتهاي فايف هذا حرتدي هذيك الأسبوع كامت only حاجة يجلسوا على حاجة اوكي waxa u baahan tahay numberkan in aad maskaxda ku haysid 88 ah insha Allah numberkan 88 ah waa numberka serverka ku soo kicin doona insha Allah waxaad soo furtaa Chrome-kaaga ani hadda ii furnaa laakiin waxaad samaysaa xaggan ka fur double click dheh then waxaad gelisaa isweyneeye then waxaad gelisaa local host laba dhibcood isdul saaran then 88 enter dheh. okay halkan markaad joogtid waxaad sameynaysaa MySQL-kaaga saad u heshid isaga laftigeeda waa inaad ku dhufataa buttonkan my ay ku qoran tahay PHP my admin. طبعا marka aad halka joogtid waxaad sameynaysaa wax ku dhufanaysaa new ana hadda kan galabta ana samaystay laakiin new baa leedahay then database-ka magaceeda lagu weydiinayaa waxaad tiraahdaa testis okay create dheh. okay tableka aad sameynaysa magaciisa tableka aan sameynay magaciisa waxaa la dhahaa test1 waana 4 columns inta rabtaa ka dhigan kartaa content column baa ka dhigan kartaa wax xartid baa ka dhiganaysaa. okay hadda waxay nagu soo koobtaa 3 column kaliya then go dheh. okay tableka waa kan marka aad buuxisid dabcan aad dhamaystirtid ayaad wax sameynaysaa asif garaysanaysaa. halkan waxaa ka dhigtaa name halkan waxaa ka dhigtaa mother's name okay halkan waxaa ka dhigtaa phone number okay save garee. good hadda wuu ku save garaysan yahay. dabcan tablekii koowaad away waa kan name mother's name iyo phone number. good okay haddaynu kaga nimaadno MySQL-ka iyo tableka sida loo sameeyo oo yani iska test ah waxaan aadaynaa markaana PHP-da in aynu wax yar soo bandhigno. dabcan insha Allah waxaad tagaysaa PC-gaaga kadib waxaad gelaysaa local disk sido. okay xampp-da sii gelaysaa ht docs then ani hadda kan hadda ana samaystay laakiin waxaad samaysanaysaa si aanay kuwan kaaga dhex darsamin oo faylka aad samaysid aan markasta aanu kaaga noqon maxay toolay kuwa aad ka dhex garan weydid ama halkan kaaga darsama waxaad samaysaa folder halkan ku samayso cusub then waxaad bixisaa YouTube testis. okay then so for
then حسميسا new ده text document عصب سميسا وحتى هذا test php test 1 in php. اوكي ده txt يعني اختصاريسا حبدليسا php then اوكي هاي انت البلد هاي then yes ده اوكي هذا فايل كان wax ku jira malaha waa in aan qordhatadii aynu gelinaa la soo bandhigi lahaa. okay ana hada waxaan isticmaalaa visual code laakiin editors waa badan yihiin net plus baa jira notepad-ka caadiga dad baa isticmaala editors badan baa jira marka insha Allah netka doonaysa isticmaal laakiin muhiimadda waxa weeye in aad koodka aad qortid oo aad soo bandhigtid. okay net visual code kan ku furo okay حاجة عليسا okay answer مقارنة هذا and then question php enter echo hello my dear friends. okay then soo xir hadaba okay good okay waa inaad save garaysaa faylka marka aad qortid save dheh then hadda aynu aadno chrome-keeni ama browser-keeni isticmaalayna okay waxaa qoraysaa sida hadda local host 2.8 folderka marka aynu rabno waa kee waa youtube testis. okay youtube testis waa inoo furaa okay waa haysaan folderka aan soo kicinay dabcan ku fur waad aragtaan hello my dear friends. dabcan intaas ayaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo insha Allah waxaan filayaa in la fahmay waana idin salaamayaa dhammaan asxaabta aad iyo aad salaamu alaykum.